والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد mahad oo dhan waxay u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala. intaa kadib maanta waxaan halkan isugu imaanay inaanu maaragtahay mahadnaq ballaaran una jeedino walaalkay dhanka midig fadhiya al-ustaad Dr. Faarax Xaaji Ibraahim, taasoo ah in ardayda qayb ka mid ah iskuulka dhigata uu tababar u bilaabay weliba dhan life saving aan dhihi karno ah in bini'aadan la badbaadiyo. waana waxa ugu weyn ee qofka bini'aadanka noloshiisa dhan adduunyada maanta saaran tahay ay ku taxalluqdo ama ay ku fadhiso. maanta waxaan ku farxayaa intaan oo dhaqaatiir ah oo mustaqbalka insha Allah inuu soo bixi doonaan la ajli Faarax ninka walaalkeen midkeeda fadhiya. waana mahadsan yahay mahad inta afka ma ahana inta ka ballaaran ayaan qalbiga ugu haynaa insha Allah tacaala. waxaan leenahay kun jeer aad ugu mahadsantahay barnaamijkan. bismillaah, anigoo ku hadlaya afka ardayda dhigata Umulqura Boarding School, gaar ahaan ardayda caafimaadka, waxaan halkan ku sabootinaynaa ama ugu duceynaynaa adeerkay Faarax Xaaji Ibraahim oo aan imaashihiisa wax badan ka faa'iidnay. waxaan ku leenahay adeer, magacaaga ha sareeyo, hankaaga ha horeeyo, riyadeeni ayaa noo rumaysay. aad ayaad ugu mahadsan tahay. safarkaagana si nabad leh ayaan rajeynaynaa inaad ugu tagtid, inaad nabadana ugu soo noqotid. anigoo ah magacayga Yaan Xuseen Maxamed, waxaan halkan umaanyar isku jeedinaya adeerkayga Faarax. magaciisu waa adeer Faarax, ruux kastooba magaciisu waa adeer Faarax. sadaqii wanaag buu yahay, ruux kastoo barta jaaligii uu ka qaadaa cilmiga uu ku reebaa. maanta iyo dharaartii waxweyn baa u dhaxeeye. aboonow istaagow, heybadii sharaf baa rabbigu uu hibeeye. magacaaga ha sareeyo, hankaaga ha horeeyo, ha yeeshee safarkaagii murug soo naguma reebin. bismillaah, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi wasallam ajmaciin. alxamdulilaahi, shukru rabbilcaalamiin. ilaahay mahad u sugnaatay. saacadii waxaan haysanaa xaflad yar oo macsalaamiin ah oo nagu talagalnay injineer Faarax Xaaji Ibraahim. insha Allah waqti yar oo holiday noogu imaaday, safar gaaban oo noogu yimid, safar intaas ka dheer asigana ku sugi doonaa insha Allah. safarkiisii wuxuu noo noqday mid aad u qiimo badan, mid maaragtay miro dhal ah. wuxuu suubiyey training wuxuu u furay gabdhaha form 1ka form 2ga form 3ga ah. alxamdulillah waa laga faa'iiday. waxaan dhahaynaa jazaaka allahu khayr, wixii ay kaa faa'iideen. bug caafimaad oo u bilaabay maaragtay inay maaragtay dad caafimaadka barta birita maalin ay noqdaan, naftooda anfacaan, ummaddana ay anfacaan. waxaaga abaalhaynaa Faaraxow. ma aha arrinkan arrinuu maanta bilaabay, arrinuu horey u soo waday weeyaan. maaragtay guruubyadii horeetoo wuxuu soo baray caafimaadka aswaal, wuxuuna suubiyey buuqa caafimaadka oo la soo diyaariyey. wuxuu diyaariyey maadaama oo nin oo injineer oo yahay, buuq kaloo loo diyaariyey oo ahaa ina aslee korontada guryaha ay u geliyaan. alxamdulillah, maanta wax badanoo ka faa'iida ahaan halkaasna ka haysanaa. maanta Umulqura sooma galo maaragtay nin technician ah, waxaan technician noo ah in wax nagii oo Faarax tababaray. marka kuma abaalgudi karno. Allah subxaanahu wa tacaala ha kuu abaalgudo, ajri xasanana Allah kaa siiyo. maantana waa dufcadiisii saddexaad gabdhahan. marka waxaan leenahay Faaraxow, thank you so much. waxaana ogaataa oo mar walba xasuusataa Umulqura way kuu baahan tahay. labo waa mahadsantihiin ardaydaydii. saddex waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad noqotaan dad mustaqbal leh oo ka fiican dadka jooga xamar ama Soomaaliya. jaaniskaad haysatiin dad badan ma haystaan. waxaan idinka rajaynaa kulligiin inaad dhaqaatiir iyo nurses iyo kulooyin wada noqotaan oo aad dadka u gargaartaan sidii adinkaba laydinkugu gargaaray. anigana waxaan idiin ballan qaadaa qofkiinnii number 1 gala inaan hadiyad fiican u soo dhiibo. waxaan idiin ballan qaadaa wixii waxbarasho ah, wixii qoladii gasha caafimaadka iyo umulisadii inaan bugaag idiin keeno, inaan meeshaas aan WhatsApp ka wada soconno, inaan waxbarashada idinku caawiyo ayaan idiin ballan qaadaa. idinkana waxaad ballan qaadaysiin inaad dadaalaysaan oo aad naftaad dhigaysaan waxbarashada, sababtoo ah jahliga iyo aqoontu ma sinna. kulley qur-aankana waa ku cadda. marka haddaad adiga waxaa la yidhi gabar hadday wax barato ummaddanaa wax baranaysa. wiil hadduu wax bartana hal qofaa wax baranayo. waxaa laga yaabaa 5 cunug inaad dhasho, 5 cunug aad dhaqaatiir ka soo saarto. marka keligiin ma ihidiin, waxa wax baranaya keligiin maaha, waa ummad dhan. marka hooyooyin fiican Allah idinka dhigo, arday fiican Allah idinka dhigo, dadaala. anigana WhatsAppkiina waa haystaa idinka mid ah.
الصديق